السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي وسلامنا ميل بدون كجوتان عشان كوري waxaan kusoo barnay training effect casharkana waxaan maanta kaga hadlaynaa pressure waxa waa cadaadis wax walba dhulka dul saaran waxay ku haysaa cadaadiskana waxa saameeya laba shay oo ah waxa loo yaqaan force iyo area tusaale ahaan waxa haysanaa kan block-asan ku haysanaa marka block A xooggiisu waa 200 newton area-diisuna waa 2 meter square sidaa awgeed xagana waxaan ku haysanaa block B marka force-kiisu waa intii la mid waa 200 newton area-diisuna waa 4 meter square marka labadan area way kala badan yihiin marka labadaba ka badan tahay area-dii hore laakiin labada xoog ba isku mid ah xoog ku dhacay kan waa isku mid sidaa awgeed waxaan odhanaynaa 200 meter square haddii ku dhacso area ah labada area ka badan xooggaasi wuu u qaybsamaya area fara badan xooggan kalena hal area oo ku wada dhacaya area ku wada dhacaya sidaa awgeed block B maadaama xooggaas uu kala baxayo area fara badan ku kala dhacayo pressure-kiisu ma badanayo oo block A xoog meel ku dhacayo ka pressure-kiisa badan cadaadiskiisa marka waxaan odhanaynaa xoog ka imaanaya block B wuu fidaya the force from block B is spread over a large area xooggaas marka large area ku fidaya marka large area ku fido maxaa dhacaya marka so the force on each meter square marka xoog walba square meter walba ku dhacaya wuu yaraanaya is reduce marka xoog walba meter ku dhac markuu yaraado xooggan labada kan xooggan uu ka xoog yaraanaya marka waxaan odhanaynaa labadan ka xoog yar kana xoog badan waxaan odhanaynaa the pressure under block B is less than that under block A marka block B way ka pressure yar tahay block A taasaan rabnaa hadda inaan cadayno marka waxaan odhanaynaa formal baynu ku horta maxaa lagu yiraahdaa horta pressure-ka sidiisa waxaan odhanaynaa pressure hadaynu qorno pressure wuxuu la mid yahay force-ka xoogga loo qaybiyay area marka hadaynu u qorno marka xarf ahaan symbol ahaan u qorno pressure la soo B force-kana waxa loo soo gaabiyaa F weyn area-dana waxa loo soo gaabiyaa A weyn marka waxaan doonaynaa inaynu labadan ka soo dhiraandirno pressure-ka cabirkiisa unit-kiisa waxaan odhanaynaa pressure waa force divided by area marka force maxaa lagu helaa force maxaa lagu cabiraa hadlaya force waxaa lagu cabiraa newton marka area-na maxaa lagu cabiraa waa meter square marka waxaan odhan karaa pressure cabirkiisu waxa weeye waa newton per meter ama sababta hadba oo taqaanaa marka newton oo loo qeybiyay meter square laakiin maxaa tahay meter square marka meter square waxa weeye wax kale ma aha newton muxuu taagan yahay newton wuxuu taagan yahay sida hal newton hadii lagu weydiiyo muxuu taagan yahay newton wuxuu taagan yahay 1 kilogram meter per second square sababta wuxuu ka yimid newton-ka sidoo ka yimid xoog waxa wuxuu ka yimid waxani waa force-ka lagu dhuftay acceleration marka intaas waa newton marka xaga waxaan ka sanaa newton waa kaas halkan waxa ka sanaa per in area loo qaybiyo weeye per meter square kadib waxa odhanaa per
meter square. marka intan waxa weeye intaas waa newton, intana waa area per meter square. waxaan rabnaa inaanu soo dhiraandhirino macnaheedu pressure cabirkiisa newton meter square ka waxay u taagan tahay. marka intaas 1 kilogram meter per second square waxay la simid tahay because of halka waxay la simid tahay naasada waxay la simid tahay intan waxay la mid tahay waa 1 kilogram meter per second square per meter square. meel kale kama keenina xagan meter per second halkan waxa 1 kilogram meter per second ka per second waxa hoos u imaanaya meter square kan hoos buu siiyay maadaama meter kan uu laba jeer u qaybsan yahay kan waxaan ku baranay lagu yaqaano ganacsa u qaybinta wuxuu tagayaa kor buu tagayaa because of shaygan wuxuu noqonayaa ku dhufasho maadaama multiplication noqonayo waxa noo soo 1 kilogram meter cubic waxa isku dhacaya meter 1 meter oo lagu dhuftay meter square waa meter cubic oo loo qaybiyay per second square. intaas hadaba 1 kilogram meter cubic per second square intaas waxa loo bixiyay pascal. maanta inta aan calaamadiyo sorry sarana calaamadiyo ya za intaas waxa loo bixiyay waxa loo yaqaano pascal. marka 1 kilogram meter square per second square intaas waxa loo bixiyay waxa loo yaqaano pascal. marka hadii lagu weydiiyo pascal maxaa la mid tahay pascal waa intaas la mid yahay 1 kilogram meter cubic per second square. ama waxaan maleeynaa cubic square ka taas waa cubic weey. marka intaas pascal baa loo bixiyay pascal maxaa badanaa loo qoraa waa b a waa loo qoraa pascal. marka waxaan odhanayaa xagga hadii uu soo laabto pressure waxa uu la mid yahay waa force divided by area waxaan lagu cabiraa pascal. marka pascal hadii lagu weydiiyo waxa weeye waa unit of pressure. pascal is a unit of pressure. intaas waa unit of pressure. marka waxaan rabaa inaan marka cadeeyo in labada shay ay yihiin garanaysa waxa loo yaqaan in labada shay ay kala pressure badan yihiin. halka waxaan ku soo eegnay waxaan ku soo sheegnay pressure ka wuxuu ka pressure B wuxuu ka yahay pressure ka R because of area da kala badan. marka waxaan odhanayaa horta intaan formula ka bixin force waa pressure wuxuu la mid yahay force loo qaybiyo area. marka labadan area pressure ka iyo area waa indirect proportional. waxaan odhanayaa pressure is waxa weeye wuxuu indirect proportional leeyahay area-da macnaheedu waxa weeye hadii pressure la badiyo area way yartaa hadii area la badiyo ama area hadii la yareeyo pressure ku wuu badanayaa. marka tusaale ahaan midida oo kale midida afkeeda wax lagu jaro area-du way yartaa oo waa midida afkeedu dhuuban tahay. hadii xagga dambe qabto saa wax loogu shay lagu jaro saa loo xoog saa loogu xeeyo way jaraysaa. laakiin hadii middaas afkaasi balaaran lahaa waxa lagu gooyo waxa kama jirteen. marka pressure ku mar walba wuxuu badanayaa hadii area la yareeyo sida awgeed tusaale weeye hadii taas saas oo kale hadii ka soo qaad waxa loo yaqaan musbaar oo kale guriyaha lagu dhiso xagga sare maganaysa baashan la yiraahdo saqaf guriga. marka hadii musbaarku af balaaran yahay oo dib loo garaaco ma galay meeshaas. marka afka hore ee dubuhu iyo qaybta dambe isku mid ma qaybta dambe xogaa way buuran tahay afkan uu dhuuban yahay kadibna marka musbaar lagu garaaco si uu fudud buu galaya. marka area-du sidoo wax inverse proportional tahay. marka hadii kan la badiyo hadii kan la yareeyo oo la dhaho decrease dil lagu sameeyo hadii decrease lagu sameeyo area hadii decrease lagu sameeyo pressure maxaa ku dhacaya increase uu kordhaya. the pressure is increase hadii la yareeyo intaas
taasina inaad ogaataan waa fiican waa jeclahay haddii badanaa saasa bay u wada xidhiidhayaan labadaas shay marka haggana rabaa inaan ku caddeeyo bal in ay kala badan yihiin in kale marka waxaan odhanayaa block A ba iisoo qaad the pressure of block A waxaan haystay halkan oo kale waxaa iisoo qaadaa pressure of block A marka pressure maxaa lagu helaa sidoo pressure waxaa lagu helaa nuri waa force-ka loo qaybiyay area marka force-kiisu muxuu ahaa pressure-ka A wuxuu ahaa 200 force markuu isku mid buu ahaa maxaa noo marka 200 oo newton loo qaybiyay marka area-duna maxay ahayd watanoo shaqeynay 5 meter square marka maxaa la mid noqonaysaa marka laba hadii la soo qeybiyo waa 100 newton per meter square marka intaas waxaa loo bixiyay nuri waxaa loo yaqaano pascal waxaan noqonaysaa waa 100 pascal ama 100 be taasoo wada marka 100kaas waa maxay waa 100kaas wuxuu ku dhacayaa halkii newton meter halkii 100 ba halkii 100 oo halkii 100 xoogaba halkii 100 oo newton xoogaba wuxuu ku dhacayaa 1 meter marka halkii 100 xooga halkii 100 oo newton wuxuu ku dhacayaa waxa loo yaqaano 1 meter marka wuxuu ugu badan yahay marka xooga ku dhacay halkii meter ba far badan oo 100 ah sida awgeed xoogaas waa pressure-kiisu ugu badan yahay marka waa 100 pressure-kiis haddaan u nimaadno kan kale oo la yiraahdo the pressure of block B pressure of block B marka pressure sida waxa lagu helaa isna pressure waxa lagu helaa sidoo kale force divided by area kadibna waxaan haystaa 200 newton loo qaybiyay area waxay waa la badiyay markii aan nidhi 4 meter square kadib maxay noqonaysaa 4 qayb waa 5 noqonaysaa 50 newton per meter square marka kan iyo kan waxa soo dhaxeeya kana 100 buu ahaa kana waxa way marka 50 newton xoog ah 50 newton baa ku dhacay halkii meter kana halkii 100 newton baa ku dhacay halkii meter square marka kan halfkii baa ku dhacay halkii half xoogadii half laga dhigo baa halkii meter ku dhacay kana 100 newton baa ku dhacaya halkii meter square fahamsan waxaan ka wado ma gartay ma filayaa aan ka wado marka intan waxa loo bixiyay newton meter square newton meter waxa loo bixiyay 50 newton meter square waxa loo bixiyay pascal wataan loo soo sheegay waxa noqonaysaa 50 pascal marka intaas waa labadaas ay si kala badan yihiin cadeynay inay xoog block B inuu ka yahay pressure ka yahay block A marka area hadii la yareeyo oo area ay badato the pressure hadii area badato pressure ku yaraanaya asaantan ku soo kale tan area badan waa 4 waa tan soma 4 meter square marka pressure ku muxuu noqonayaa hadii area badato pressure uu yaraanaya area hadii badato hadii pressure tanna waa sidoo kale tanna waa tii sida qaybkii kale hadii area yaraato pressure ka badanaya marka tan area 2 meter behind pressure kuna uu batay 200 waxaan u tahay 100 pascal marka taas waxa weeye inaan idin cadeeyo taas marka hadda lakan tusaale kale hadaan bixino oo ah tusaalayaasha kaaga imaanaya macnaheedu ama example ama exercise-yada kaaga imaanaya sida loo soo imtixaanada qaar oo kale ka example hadda kala sidoo kale afkaabada kaaga imaan kara marka qaarkood waxa lagu siinayaa pressure waxa lagu dirayaa force ama area lagu dirayaa tusaale ahaan waxaad haysataa halkan shay pressure ka lagu siiyo waxa lagu yiri pressure ku wuxuu yahay 100 pascal area-dana waa lagu siiyay waxa la yiri waa 6 meter square waxa lagu yiri waxa haysaa force marka taas wax dhibaato weyn saa umare wayna qofku yaqaan sida subject of formula lagu dhigo sida formula xarf lagu soo bixi karo marka waan xil soo baranay pressure in lagu helo force loo qeybiyay area ya marka
shaygan waxaan isku dhufanayaa cross multiplication maadaama aan raadinayo f oo f taasaan raadinaya hadeer haddana waxaan saari karaa calaamad waxaan raadinaya hadeer force-kaasaan raadinaya markaa hadeerkaasaan raadinaya force-kaas tanaan raadinaya marka waxaan odhanayaa inaan cross multiplication isku dhuftaa marka waxaan odhanayaa maadaama aan cross multiplication isku dhufanayo waxaan odhanayaa shaygan waynu taas ku dhacaa kan hal baa qarsoon sida mathematica kana waa saas marka cross baan isku dhufanaya labadaas marka waxay noqonaysaa force wuxuu noqonayaa haddii force hal dhufto waa halkii force wuxuu noqonayaa pressure-ka oo lagu dhuftay area marka force wuxuu la mid noqonayaa labadaas aan isku dhufanaya bis labadan waxay noqonaysaa marka muxuu ahaa 100 pascal oo lagu dhuftay area-da oo ah 6 meter square marka force wuxuu la mid noqonayaa pascal waxa ahaa marka 100 waxa newton per meter square oo lagu dhuftay 6 meter square marka meter square ka meter square kaas isku sanay marka force wuxuu la mid noqonayaa 600 oo newton marka force-kaas aan ku helayaa marka mararka qaarkood waxaa la diri karaa area waa sida hadeer oo kale mararka qaarkood pressure baa la diri karaa mararka qaarkood area waxaa la siin karaa si kale oo waxaa la siin karaa in shay la sawiro ama shay magaranaysaa qayb kuwan la yiraahdo keyboard oo kale oo saasa oo lagu dhaho shaygaas dhinacyadiisa halkan a iyo b iyo c in lagu dhaho balugsiyo hagana 5 meter 4 meter 5 meter balugsiyo kadibna area-diisa shaygaas si lagu saari karo waa garanaysaa waa a lagu dhuftay b kadib area markaas soo heshiis magaranaysaa force-kana waa la soo bixi kartaa mararka qaarkood force-ka waxaa lagu siinayaa gravitational force oo muxuu ahaa inaad ku soo heshiin mass lagu dhuftay gravitation of earth kadibna ama lagu siiyo 10 kilogram 10 newton ma leh 10 newton marka shayadu mar walba waa kala duwan yihiin qaarkood marka 10 newton per kilogram-ka marka taas waa per kilogram marka taas waxa weeye gravitational of earth waa gaadaas kana waa force waa weight-ka kana waa mass-ka marka haddii labada mid lagu siiyo waa la soo bixi kartaa marka kana wuxuu la mid yahay marka force-ka si lagu soo baxo kana waa force-ka oo kale weeye marka casharkan maanta halkaas aan ku joojinanaa insha Allah casharkan ku xigan waxaan ka hadli doonaa pressure-ka qaybta liquid-ka qaybtan waxa weeye waa adkayaasha waxyaalaha shayadan adag marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.